deegaanka Galooley oo ka tirsan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay ugaas Mubaarak Cali Xirsi ugaaska guud ee beesha Gurgaarte Hawiye soo dhaweynta ugaaska ayaa waxaa ka qayb qaatay odayaasha waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Galooley socdaalka ugaaska ayaa wuxuu ku saleysnaa sidoo ugu guurgali lahaa xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay oo soo dhaweeyay ugaaska qaar kamid ah waxgaradka deegaanka Galooley khayrkii xasaaskan Allah inaga siiyo inta kadib waftidan maanta ka timid Hargeysa waxa hogaaminayay ismka guud ugaaska guud ee beesha Madhibaan oo magaciisa la yiraahdo Mubaarak Cali Xirsi waxa lagu doortay dibadda in muddo uu ka shaqeynayay muddo laga joogo 5 casho ka hor buu ka soo degay magaalada Hargeysa halka wixii joogay wuu shiriyay wuxuu go'aan ku qaatay ama noo sheegay in ujeedkiisu yahay inuu soo arko deegaanada Madhibaan degan yahay siiba Galooley iyo Daar Salaam oo uusan gurigiisa ku leexan doonin sidaasaanu shalay Hargeysa kaga soo baxnay garaad ku soo dhawow deegaankaagii magaaladaadii reer Galooley ku soo gacmo furan maxamed Gargaarti waa soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaa waana nahalo waa ahay waligayaanu ahay waayo maalintii fiqishini iyo Sheekh Madibe godka xangay loogu yimid ay ku jireen deeniman walaalaabay ahaayeen cid kale meel kale ka yimaadeen mid hawee ka yimaadeen waxa ilaa maalinka ummadda wadanka joogta waxay u taqaanay reer Sheekh Madibe maxamed Gargaarti intaana waa ahay in badanna waa laga wada hadlay halkaas muran kuma jirto waanu salaamaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaanu ku salaamaynaa dhammaan saanta islaamka wixii maxamed Gargaarti waana soo dhaweynaynaa iyo hawiye oo dhanba Gargaarti hawiye Soomaaliya marka waxa weeye Gargaarti hawiye waa soo dhaweynaynaa rabitaan aynu isxabno oo dal dheer aad nooga soo kacdo oo naga soo qiimaysay ugaas aynu isugu nimid taasaan horta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadinayna marka labaad Gurgaatinimada laftigeedu maanta aad la soconaysaan adigoo Suudaankii Gurgaata annana aanu ehelkaaga iyo shacabkaaga nahay iyo odayaashaadii iyo magaaladaada iyo deegaankaagii hore aanu dhici jiray loo arki jiray wax qarsoona ay tahay oo dulmi ku aasna haddii Ilaahay maanta dulmiga intuu ka qaaday daahi ka qaaday taasina waa horumar la gaadhay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma ka gaadhay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala horumarka la gaadhay haynoo sii wado war maanta heerka aynu marayno nin walba waxa iska dhigtaa inaad adigu kobcinteedii iyo kurinteedii iyo maalkeedii aad kaliga tahay ka ugaaska ah ka garaadka ah ka caaqilka ah waxaan soo dhaweynaynaa waftiga noo timid waan soo dhaweynaynaa dhammaantood waan soo dhaweynaynaa title kasta ay yihiin iyo nooc kasta ay ku magacaaban yihiin labadaba waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay gacan furan ku soo dhawaada waan soo dhaweynaynaa waa magaaladiina iyo dadkiina iyo dalkiina gacan furan baan idinku soo dhaweynaynaa welcome baan leenahay midda kale waxa weeye baahiyuhu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkan abuuray baahida bani aadamku sideedaba maba soo dhamaataba wax soo dhamaadaba ma khaasatan dadkan hadeerto meesha degan baahidooda waxa weeye mid la soo koobi karo ma laana waxa weeye marka ugu horeysa dad duuyo badan ba ma ahayn markii labaadna abaar baa xaqatay markii saddexaadna abaarta dabadeed halka isugu yimaadeen waa dhaqaale badan haysa waa dareemaysaan baahiyuhu waa laba oo waxna waa wax indhiina ku arki kartaan waxna waa wax maartay hoos ahaan in leedin ka waramo u baahan marka saas daraadeed waxa weeye waxay u baahan tahay baahida koowaad ee ay u baahan tahay waa inay biyaasho haddii baahida biyahana waxa ugu badani ee ay ka kaaftoomi kartaa baahida biyaha waa iyadoo riig hesha biyo loo shubay waxa laga yaabaa inay habeenka iyo maalintaas ama labada bari ay ku noolaadaan barkad haddii biyo ay macnaha barkada yar samaystaan waxa laga yaabaa bil iyo macnaha wax lamida ama 2 bilood ugu badnaan inay u shaqeeyaan waxa weeye waxa soo dhan wax soo daba go'ay weeye laakiin haddii ay meeshii riig hesho waxa weeye noloshii biyuhu way istaagaysaa dadka noloshii way wacnaanaysaa waxa weeye noloshoodii baa u wacnaanaysaa
dhismihii baa u hirgelaya xitaa inay wax dhistaan baa u hirgelaya laana qof oo man dhoobo iyo ciid iskuma khaldi kara iyo sibid oo bariiskiiba wax ku karsado u baahan ciid iyo dhagax isma saari karo iskuma qasi karo saas daraadeed waxa way baahida koowaad ee meeshu ay ama ku dhismi kartaa ama dadku kor ugu kici kara ku noolaan kara waa iyadoo biyo joogta la helo biyo joogta iyadoo la helo waxa weeye caafimaadkii waa sidoo kale MCH ma jiro ma dhisna waxa weeye sida migranta Aqal Xasan uu tilmaamayay waxa weeye soo qabiyo 2 mitir ka jooga ayuu maaragtay halkaas yahay waxa weeye qabiyo fara badan way jirtaa oo waxa weeye wixii magaalada laga hagi lahaa oo dhan masaajidkaas maaragtay waliba qabiyada ah iyo gurigaas maktabada ay deyrka aad arki doontaan wada qabyada ah intaas uun baa maaragtay xoogaa ka taagan laakiin wixii dhamaystirka magaalada ay ku noolaan lahayd nooc kasta ay tahay waxa way qabiyo u badan yihiin isagoona ugu dambeyntii uu halka ka hadlay Suldaan Mubaarak Cali Xirsi isagoona u duceeyay dhamaanba inuu bulshada ku dhaqan deegaanka Galooley in Ilaahay dhibaatada ka dulqaado waxsanahay kulankan maanta aan idinku yimid ujeedadiisuna ahayd inaan balorsa soo arko deegaankan u abtirsanayo anigu hadda qurbaan ka yimid inaan dad kale soo arko soona barto baahida ka jirta deegaanada ma dhibaan degan yahayna inaan soo xoraansado si aan ugu warramo qurba joogtii oo aan u idhaahdo u dhiirigeliyo in deegaanadooda ay u baahan yihiin oo baahi oo hayso sababahan idinku yimid waa intaas inaan xoogaa dhowr booyadooda biyaa labada degaan aan anigu u shubana waan ujeedadeedana way ahayd marka wax kale oo hadda waan la socdaa xiriirka inuu fiican yahay madhibaanka aaga wada degan oo isu hiiliyaan inta xaaladda waan la socdaa kolley taa dadka gobollada jooga iyo qurbaha jooga ayaa waxaanu farnaa midnimo idinka midnimo idima farayno midnimada waa idinku ognahay waxaan kaliya aanu idinku nimid waxa weeye inaan xaaladii dhexdiina ka jirta maadaama aad dhul cusub aasaasteen baahiyaha inaan ogaado si aan dhiirigelin ugu sameeyo qurba joogtii madhibaan xaggaa joogtay Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Buuhoodle.